الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند الاستيال ومركلة برنامج كيني شاكو قابن صاحبada aynu jecelnahayow qaybtii 12aad ee sheekadii la magac baxday alla maxaan cadowgii jacaylkayga gacantaydii ku barbaashay ayaa waxa inoo joogtay run ahaantii markaan kaa ag tago xasuustaada oo kaliya ayaan dugaashadaa waa midda anigaba aan ku noolahay xasuustaada markaan gurigeyga u laabto sidaa ayaa inoo ballana qari caafimaad badan ayaan ku rajeynayaa haye nolosheedii nool kulanti dambe bye haye xabiib waatan qaybtii 13aad ee sheekada oo aan halkaasi ka sii ambaqaadno الله قرمي عربك سوقتي ماشي حراش حتى مركي أنت قرنتي لعقت أنا وقت ما صورت قشنا وحسوقت هذا نقول لي هي عربايا كوجينا وحرتهم كوسوق ذايا يعني وحن لينا يا ما أنت أي نلوش إذا فرحت إذا بلابني سا ما أنت أي مروكتي إذا لماني سا وأنت آذن أو فرح سنة هاي بس إنه يصير هذا قفتان لعق أي كوج علاني سا ولعق أي كوربتها يعني صدق مد أي عرباينا كوشيجو واديار واد إيش شيء كرتا إن هايسدين قبلان ظروف طيارته إنك عقب بحضو لعقت هذا يوجد وأنت أنا جو حاسو دن كمله مستقبل أيام ربع وكليه مستقبل كاجا أنا جا هنتينيو أدنى وانكو جعلها وأنا كو جعلان دونا ميتاس لكن صدق قرمي إجعلات هذيك أنا جا لفتي واقصة دير ونبهن إن وقت بدنا إن وذا قاعدنا وإن وذا في الرئيسنا أي أبهن تهابا سومو قد ميتاس runtii mar kale ayaad iga sheegay doontaa laakiin aan hadda kuma dhihi kari waa ku jeclahay laakiin waxaan diyaar u ahay inaan qalbigayga dhan ku furo oo aan ku soo dhaweeyo oo aan kalsooni badan aan ku siiyo fahmo abay maxaa ninkan kula tahay maanta os iga aamus warkaaga marabiye oo maxaa dhaca gorma sidaan isku bedeshay saalim ma rabo inaan kula hadlo min fadliga waan ku baryayaa walaal iga hortag ma rabi hadalkaaga waan ku baryayaa banaanka iga bax wax kasta waan xalinaynaa laakiin horta marka hore ii sheeg ninkan kula taagan wajigiisa aanan aqoonin muxuu ahaa bal taa ifaansi hal mar iga dhaadhici adiga taas shaqadaada ma ahan waxaan shaqadaada ahayn ma loo baahan inaad soo gashid taada ku ekaaw fursadna kuma haayo inaan kula hadlo waan ku baryayaa bax banaanka bax waxaan aaminsanahay haddii aan wada fadhiisano inaan wax walba xalin karno marka wixii hore u dhacay iyo waxyaabo kale iska ilow ninkan kula joogo iyo waxyaabo aad damacsantaa ii sheeg aniga waxaasoo dhan aad sheegaysa diyaar u mihiin waxaan rabaa mid kaliya inaan kuu sheego isbuucyada soo socda inaan arooskayga kasoo qayb gasho xalooday ku dhaafin intaas ayaan ku leeyahay aroos ah maxaa ku hadashay een waa arooska aniga iyo wiilkan dhinacayga taagan oo runtii ah geesigii ragga oo markii aad adiga ii caawin weysay oo aad garabkaa waayay aan garab ka helay marka waxaan ku leeyahay xalooday ku dhaafin min fadlag haddana horteeda ka leexo oo ku baryayaa iga tag ma rabo inaan ku arko mar kale abayo muxuu yahay ninkan sidaan kula doodayo wiilkan waa wiil gurigeena ku noolaa runtii mar walbana sidaan oo u doodaa marka iska daa waxba isku mushkileen isaga dib badan yahay miyaa isaga aad iyo aad ayuu dhib badan yahay walaalkay ayaa mar walba caawiyo oo waxa uu soo helo wax ka siiya marka ma aqaani maanta sidaan wuxuu uga hadlayo ka baay niyo wadaan rago isfahmi karnaaye waxaan ka rabaa maxaa qaldan maxaa maanta waa soo dhuntay maxaan iska fahamnaa aniga adiga ii sheeg gabadhan maxaad ku haysataa ii sheeg gabadhan aniga waqti dheer ana soo maray waqtigaad sheegayso muxuu yahay oo idin soo dhaxmaray
saaxiibo horta inaan isfahmi weynaa oo maleena ani adim isfahmi karno sababtoo ah adigoo ugu cusub markii ugu horreysay aan wajigaaga aan arko haddana hadalla si kale ila hadlaysaa qofta anaa kaga aqoon badan nolol aan dhex martay waqti dheer aan isla nooleen nolosha aad sheegayso abaayo ninkan miyaa nolol wadaag aad ahaydeen adiga fiiri maxaad nolosheeda been ugu sheegaysaa ani adiga goormeen nolol wadaagnay waan ku caawinayn oo kaliya maxaad u fahantaa adiga hadda waa soo gabagabaysmiyaa wixiina dhex maray nolosheenii iyo waqtigii dheeraa marka waad hilmaamtay ani adiga maxaana dhex mari kara bal maxaana dhex mari kara adi laftigaaga ka fikira maxaana dhex mari kara nolol ayuu leeyahay fiiri kaabe lacagtaan waan ogahay gabadhan in intaanu keliya murminaysa lacagtaa sida ii sheegtayna walaalkeeda ayuu ku caawinayay marka saaxiib adoo raalliyaa fursadna sii waxaad usoo diyaaraysaa munaasabadda xafladda guurkeena maadaama guriga aad ku nooleed waadna mahadsan tahay saaxiib war lacag ma kaa rabnay lacagtaada qaaday kahay ila hadal horta ila hadal kulama hadlayo fursadna kuuma hayo abaayo waan sii dhaqaaqaynaa ninkaanse waxaad u sheegtaa waxyaabaha riyada mare awaalka uu ku jiro inuu iska helo maantana waxaad ku soo celinaysaa nolol la wadaagnay ani adiga goormeena la wadaagnay noloshan aad sheegaysanay goormeena dhex martay waxaan ku leeyahay wiilyahow aanan aqoonin dantiisa min fadlag iga dabahar marta hadda kadib xitaa haddii aan wadada iska hor imaano ima dhihi kartid gabadhan is aqoon jirnay waan ku baryayaa ani adiga na kala weedaari laba wad aan kala marno min fadlag allah ilaan qalbi wax jecel doqonsanaa dab hadduu ku istaagana dareen ma laha haddii hadalka loo diido eegmada ayuu micnimoodaa aniga taas ayaa maanta haysato laakiin waxaan kuu sheegayaa fahma qofkii ugu horreeyey ee qof jecel ula soo wadaagay inkire ee markaa ka dhigay qof uusan aqoon ma tihid oo horay ayuu ugu soo dhacday adduunyadan wax walba waan ku sabraa ani aad ugu samaysay laakiin tan waxbaa ka dambayn doona heshiiskii ballantii ma jabaan tahay barashadu maqusba barashadu maqusba iga ballanqaad qalbiga mar walba adigu gurtabaayo waxaan jeclaa inaa ii samaysid wax walbo aad iga codsato qof kale u samaynaa ma jirto marka aamin adaa kuu samaynaa wax walba i weydiiso waa ballan waaye xabiibi tan way dhacday inaan ku waayo laakiin ii ballanqaad mar kale inaysan dhacaynin way soo laabanayn arrintaan oo kale waxaan rajaynayaa inaad ballantaa iga qaaday aad kasoo bixi doontid mar kastana waxaa ogaataa in aniga dhinacaaga ka jilacsanahay kalmadihii bogay iyo beerkayga luli jiray iyaguna ma bemba iyaguna ma bemba iga aamus warkaaga marabiye oo maxaa dhaca gorma sidaan isku bedeshay saalim ma rabo inaan kula hadlo min fadlag waan ku baryayaa walaal iga hortag ma rabi hadalkaaga waan ku baryayaa banaanka iga bax isuhu laba bari iyo bilayad haddii uu usaylkiyo kalgacaylkii ka baxay anna waan bogsanayaa maxaad iigu hanjabaysaa ma og tahay maanta inaan adiga kaa guryo badanahay kaa gaari badanahay weliba shaqaalo badan uu joogo guriga la doonayo in la geeyo hal mid ayaan kuu samaynayaa maadaama aan nagu hoos noolaa jirtay anigii walaalkay aabahay oo weliba walaalkay wax badan ku caawiyay saaxiibkiisna ahayd inaad gurigeena kaab shaqaalo aad ka noqoto taas ayaan kugu saacidayaa haddii aad raali ka tahay soo dhawow waxaana diyaar u ahay in shaqaalaha kale adiga aan kaa soo dhawaysto maadaama wax badan aad gurigeena ku nooleed daruuf adagna aad soo martay ma ahna inaan ka tago bini'aadanimada marka taa darteed ayaan kugu isxaanfalayaa inuu nooluhu ka cararo inuu caadihiisa maalo halku caawimo ka waayo ogo waa cadadiisa ishqiyo boholyo ku raagay naftii cabashada ku daashay hadday ciidi jida socodka carowda waa garteede jacaylka ana
الله wax kasto na soo dhaxmaratan maanta ii dambeysay adduunyada inta joogto wax kasto waa la arkaa Allah dhib ma laha wax kasto waa na sabrayaa laakiin waxaad ogaanaysaa adina ninkan aad maanta aamintay ee go'aanka degdega aad ku qaadatay inuu noloshaada kaafin karo hadduu aan iga kaaficnaad waad arki doontaa oo waqti dheer oo na soo dhaxmaray jaanis aan kuugu jawaabo ma hayo marka waxaan ku leeyahay jaaw mac salaama mar kale aan adiga saakin الله way wada bixin wallahi way raacday gaariga bisi raacaysa الله way bixin fahmo الله fahmo وريا معك قيلنا يا ويس عدا وخيلنا ولا معك ودا وريا aniga fahma raba fahma ayaan u baahanahay الله fahma raba ورافا مذا شيء اسمعي توريا آموس هذا إيجا آموس أنا فاهم الربا الله فهم ما هالمامي كرا إن مدها نسوي الجعلين وقتي أنا صود أحمري لكن وحول بوحي كدكتي وحبي laakiin wax walba waxay ka dhigtay wax walba way tirtirtay laakiin anisan ugu maharayo walaalkeed hanad iyada la dhashay ayaan raadinayaa asiga ayaana ka argudsan doonaa maadaama iyada fursad aan ku heli karin aan uga arguto tii igu sameysay lagama yaabo inaan halkaan ku hilmaamanina shakhsiga aan ka aarsan lahaa ee hadda ii muuqdo waa walaalkeed jacayl ayuu leeyahay waa uu soo baray iyada ayaan hadda aadayaa marka aan la soo kulmay inuu propaganda iyo been iyo jacayl been ah oo waqti uga luminayo oo ku hayo waqtigana uga luminayo inuu soo sheegi doonaa hadda waan baxaa waxaan aadayaa dumaashi laakiin hadda kadib wixii markan ka dambeeya aan dumaashi oran doonin maadaama aan doonayo in walaashiis fahmo wax igu sameysaan asiga ka aaro waan raadinayaa inkastoo markii ugu horreysay ee la ii geeyay ay ahayd meelahan ay ka dhoweed halkaas socota nasiibka iga bataba ani gurigeeda ma lay barin maalintii halka oo barxada ugu kulansiiyay hadda waa batanayadii ilhaan qofka gadaasheeda ka soo qeylinaya ilhaan oo leeyahay laakiin waa cod igu cusub gadaalna laakiin u jeesanaya gadaal cidita ma aqaane ilhaan ma maqashniya dumaashi ilhaan dumaashi aniga hal qof ayaa yaqaan الله ملاها وسالم ها سالم وعندنا حقليو حكومة لما سفاني حسبنا وليقي مقالين حرقارنا شغالين وحان هاي وليا حورا كان حورا فايسنا هاي wargelin dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee jecel barashada mihnada saxaafadda waxaa lagu wargelinayaa in macadka tababarada saxaafadda ee Danan Training Center uu qaadanayo arday cusub kuwaasi oo isugu jira bilow dhexdhexaad iyo dhamaystir waxaana la bari doonaa ardaydaasi sameynta warka barnaamijyada sheekooyinka iyo qaybta farsamada sidoo kale macadku waxa uu qaadanayaa koorso 3 bil ah oo degdeg ahi taasi oo loo qaadanayo 40 arday haddaba wixii faahfaahin intaas dheer ama macluumaad waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada kala ah eber 6677 eber 356 ama telefoonka kale eber 6677 eber 357 haddaba balanteenu waa inaan hore u gaarnaa maxadka saxaafadda ee Danan Training Center dareenka xanuun
xuskooda shucuubta mudan hurtoon iyagoo ahaa abkooduna uu xidhnaa anaa xayoo u nool waxaana wariya xoraa danan radio waxaa ka daalacan kartaa dulucda warka iyo kiisa dookaroon dadaal badan iyo darajo lagu dheehay danan radio waran dumaashi seetahay saalim fiican alxamdulilah waan fiicanaha seetaa dumaashi anina waan caafimaad qabaa seeta xaggaa ka waran noloshaada alxamdulilah dumaashi waan fiicanahay waa lagu waayay maxaa dhaca sidii kadib laisma arkin waadna nacdaye maya wallaahi kuma nicna arrimo unbaa iska haystay oo mashquulkayga iska badnaa laakiin aniga gurigaaga maanan aqoonin sida aan kugu imaawaya hadda anoo isdhahaayo dad un weydiiyo oo ku raadinayo ilaa saakaan ku raadinayo aan iska kaa hela anoo waddada iska maraayo ها دماشي بنانكا wax ka soo doontay dumashi wax dhib ma jiray ii sheeg maxaa dhacay maya wax sidaa weyn ma jiraan arrin un baarba inaan kuu sheego xagee wada fadhiisanaa okay dumashi intana istaajigeedkan hoostiisana istaaji wax walba intaan ku dhamaysanayna arrinta aan u soo waday aan rabin aan u sheego iyo siday u fududaynaysanayso wallahi isma laha laakiin ilama ah inay iga aqbali doonto sax maxaa yeelay iida iyo hanad muddo ay isjeclaayeen hanad waan arkay sida uu qarwaayay siday isku aamineen laakiin ani muhiimadeedu waa ana argoosta runtan aan sheegaa dumashi maxaad kaligaa iskula hadlaysaa problemka jiro haddii uu yahay midaan wax ka qaban karo kula xalin karo ii sheeg waan kula xalinayaa dumashi waxa jiro ii sheeg asla hadlan kaligaaga please arrin un iska gaabanaan rabaa inaan maanta kuu sheego waana taha hadda aan kuugu yeeray ana kuu raadinayo oon sana maanta ugu soo baxay okay dumashi ii sheeg marka ani ma rabo maanta wixii ka dambeeya inaan dumaashi ku dhaho waxaan rabaa inaan ku dhaho walaal micnahaaga ma fahmi saalim ama saaxiibo aan naqano sababtoo ah aniga waxaan jecelahay horumarkaaga waxaan jecelahay waxyaabaha aad ku haminayso ee waqtigaa kaaga luma inay naqdaan wax wanaagsan waana taa sababta aan maanta kugu imid oon kuu soo raadiyey marka horumarkaaga un baan aniga ka shaqaynayaa wixii markaa ka dambeeya horta kuma dhihi karo qof aan ka shakiyey ayaa tahay sababtoo ah aniga saaxiibkay ayaa adiga ii kaa baray waxaadna ila muuqataa qof wanaagsan meelahan inaad wax dhibaato ah soo wado okay walaal waa noqon karnaa laakiin waxa jira waa inaad ii sheegtaa marka hore waxaan doonayaa wax adiga kaa qarsoon oo hal camoolaha ka tahay inaan daaha kaaga qaado wax aniga iga qarsoon oo aan ogeyno adiga daaha iga qaadaayo bal maxay noqon doonaan waxaas ani hanad waan kaga aqoon badanahay hal qola isla jiifanaa waqti isla soo qaadanay wax badanaana wada sheekaysanaynay marka waxyaabo badan oo kaa qarsoon aan maanta aadan ogeynaan raba inaan kuu sheego hadalka waad jiijiidaysaa marba marka ka dambayso dumaashi hanadna waad ku soo celcelinaysaa magaciisa ii sheeg hanadkayga maxaa ku dhacay magac hanad ayaad maanta dhan wadaa may waxba kuma dhicin laakiin adi waad kulantaan waad haasawdaan waana soo xiriirisaan oo kaliya laakiin ani waqti walbaan wada sheekaysanaa waxyaabaha uu kula doonayo waxa uu kula damacsan yahay iyo noloshiisa iyo noloshaada sida ay tahay ayaan ka warhayaa taa un baan rabaa inaan maanta waxyaaba badan kaa ogeysiiyo warigii dhammaantiis aniga aad baan u walwalsanahay ii soo koob ujeeddada hanadaad iiga wado macnaha ii sheegadaysan wax dhibaa jirin wax kale ma aha waxaan rabaa inaan kuu sheego waxyaabaha uu hadal kugu yidhaahdo waxyaabaha uu hanad ku dhaho iyo farqiga u dhexeeya noloshiisa iyo noloshaada ayaan rabaa inaan waxyaaba badan kaa ogeysiiyo maxaa yeelay ma tihiin laba qof oo isku qalma weli ani ujeeddadaada ma fahmin hanad aniga waxyaabaha ii soo bandhigtay noloshiisa aad bay isugu qalmaan aniga ma u dulqaadan kara cid hanad wax ka sheegaysa run ahaantii noloshiisa waa mid sarraysa hanad maya ujeeddadaada waa inaad ii caddaysaa dumashi saalim noloshiisa inay sarraysa adi ayuu kuu sheekeeyey laakiin aniga waxaan ogahay dhibaatada haysato duruufta uu ku nool yahay iyo danta uu kaa leeyahay maxay tahay duruufta haysata iyo dantu aan iga leeyahay hanad oo iga lahaan karo hanad waa nin faqiir ah waa nin dhibaataysan oo duruufaysan kumana jeclo ee dan ayuu kaa leeyahay taa ayaan rabaa inaan kuugu siiyo aamus aad baad u qaldan tahay hanad adiga duruuftiisa laguma dirsan hanadna ma duruufaysno anna marnaba kaama aqbalaayo inaad hanad wax ka sheegto
barida la ii kaa bar kaliya ayaan kuugu xishmeynayaa dumaasha Saalim waa inaad xadkaaga ku ekaataa maanta waad dhihi kartaa waad qaldan tahay laakiin maalin maad dhihi doontaa waad saxanta waad mahad celi doontaa ugu taa xasuusnaaw waa ku baryayaa wada ayaa maraya ma raba inaan inta wadada socdaan dhibaatooda igala qortag waxaad wado iyo waxyaabaaga ma aaminayo hanad shaqada uu ku sheegayo iyo waxyaabaha uu isgaarsiinayo ma gaarin gawaarida ayuu dhaqaajidka ayuu taagan yahay war miiga aamusi kartaa waa ku baryayaa hanad mar damba magaciisa ma soo hadal qaadi kartid ku dhaa iga hor dhaqaaqadana waa ku baryayaa iga tag bax aamin waa ku baryaa rumayso maalinaad rumayso doontaa gawaaridu dhaqaa gaariga uu kugu imaanayo oo kugu imaaday cadaay adarkiisa asi ma laha wuu soo dhaqay markaa ayuu soo tuugsa sida uu kugu imaaday dharka uu gashan yahay asi ma laha saacad uu xiran yahay asi ma laha kobaha uu wata xataa asi ma laha taa iga aamin fadlan iga aamus waa ku baryayaa dumaasha Saalim waxaaga waa ka badbadis aniga marnaba ma doonayo magac hanad in wax laga sheego hanad waa aniga jaceelkayga waa noloshiisana waxba kaama quseeyaan intaana gacan ku qaadan iga kortag waa ku baryayaa aamin waa ku baryaa aamin war aniga kuma aaminayo iyo waxaad wada maraba iga kortag waa ku baryayaa biliis dumaashi hadda wanaag ayaan kula hadlayaa maskaxdeedu way degan tahay iga kortag horta ma aaminsantahay hanad inuu saaxiibkiya taa ma ogtahay war hanad adigoo kale inuu saaxiibka dhigta ma aheenba sharaftiisa ayaaba ku sii dheelaysaaba hanad waad u gafaysaa aniga haddaaba wejigan uu kuu qarsan yahan ogaan lahaa mar hore ayaa iska kaa fogeyn lahaa waxaan kuu soo dhawaystay waxay tahay magac hanad iyo weliba jaceelkayga ayaan kuugu qadarinayay oo adigana waxaad keentay inaad hanad wax ka sheegto maanta waa markii ugu horreysay aan kula kulmayo hadallada aan kuu sheegayo waad aamini la'dahay laakiin kulankeena labaad ayaad si saxa cadeymaha ayuu arki doontaa bes kulan labaad ha sheegin kulankeena ugu horreeya hadduu yahay kan ha noqdo kii ugu dambeeyana isku arki lahayn isma arkeena dambe aniga dan kale kaamalihi mustaqbalkaaga inuu mugdi kaa galo ayaan ku diidanahay war adiga mustaqbalkayga ka hadlaya halkeeda iga imaato horta iga kortag waa ku baryaaya hadalladaada iga kor qaad ilaahan hadda waad aamini la'dahay laakiin kulankeena dambe waxaan ku ballan qaaday inaad runta ogaa doonto oo xaqiiqada soo saari doono war adiga ilhaan maxaad u guraysaa war ana xaqiiqa adi kaama sugaayo waa ku baryaaya dumaashi Saalim xishmad ayaad weli iga mudan tahay cizaad iga mudan tahay bilis dhabarkaaga isoo aad mid ii ogolow mid ruuxan ku ogolaanay maxay yihiin hal mid kaliya maxaan ku ogolaanayaa inaan kulan dambe yeelano maya ana adi kulan ma kula yeelanaya hadda ayaadba waxyaabo kale ii keentaba kulanka labaad maxaan kaa filanayaa kulanka dambana arrintan inaan caddeyn kaa keeno un baan kaliya kugu imaanaya ani dan kale kaamaliyay mustaqbalkaaga inaan runta kuu sheegaa rabaa waxyaabaha dhibaatada kuu keeni karo waddada aad ku socoto inay mugdi tahay aniga adiga la kulankaaga nasiibka sidaanoo kale hadduu ii kaa tusa ma sheegin laakiin adiga lagama yaabo inaan adiga ku soo raadsado bes warka iga xir iga tag waa ku baryayaa أنا وقتك إنه كلام عندي دينهاي واحد بدنا هنا السجع لذن لكن جعلك نبينا يوها وحرب كلنا كذا بهدية صورة قشو إن الحقيقة كويسيو مركي إيه أكبر أوكلي إنا كلنا هلا كبد محاسبنا يا سالم وكبر يا إيجا كرتك جعلك يجرح كم شيء كرتك هنا نروح كم شيء كرتك بليس وضد واتقى نقد سيدا يجو سيدا هاي وضنا سنت هاي وان كان سيتري لكن رنت إنا كويسيو هي حقيقة جرت إنا كوكنا بلان كوغادا عننا قداش هذا الضنبها كسوران gada hortaada fiiri igana dhaqaaqmo ku baryaaya dib badana geedkan hortiisa ayaan ka baqaaya inaan ku suuxo muxuu yahay maanta Saalim oo ila kulmay waxyaabaha oo ila imaadin oo hanad wax ka sheego aniga dhan waa jireenaya ma aqaan waxa igu dhacay intaana wadada ku dhicin waa inaan gurigeyga aadaa tolo muxuu soo wadaa ninkan asiga dhan nooc kale igu soo galay waa inaan aniga sharta asiga oo igu soo wada aan ka hortagaa ama haddii kale degdegsiimo ma fiicna la yiri waa inaan gurigeyga tagaa maskaxdeeda dejiyaa oo aan maskaxdeeda ka shaqaysiyaa arrintan haddaan hanad ogeysiiyana wuu dabagalayaa laakiin marka hore waa inaan ana fikirkeena naga tag dheh madaxooba iga cunaba waa inaan gurigeyga aadaa marka qorshihii koowaad ee aan maanta rabay inaan ugu aarguto fahmo walaalkeed hanad oo qorshahaygu ahaa uu iga fashilmay laakiin waa inaan keenaa shax kale oo aan ku aarguto ani muhiimaddeedu waa inaan aarsadaa arrintai fahma igu dhigta walaalkeed waa inaan ka aargutaa way aamini la'daa hadda waa qalbi wax jecel laakiin waa qalbi been jecel caruurnimo ayaa hayso waqtiga ayuuna ka luminaya anaa ugu aqoon badan laakiin waxaa balana xaqiiqada jirta inaan soo saaro kulanka labaad aan la yeelan doono haddii ii suura gasho aan nasiibkayga uu isaacido aan la kulmana moobilkeeda ayaan ka qaadi doonaa
waana usoo sawiri doonaa asigoo gawaarida dhaqaya ninka iyo moodo inuu bangiga ka shaqeeya dhibaataysan. dhegeystayaashaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii 13aad ee sheekadii la magac baxday alla maxaan cadowgii jacaylkayga gacantaydii ku barbaashay sheekadan waxaa hal abuurkeeda iska leh yuusuf maxamed axmed saxafiyare. isku dabaridka iyo qaabeynta sheekadan waa saaxiibkay liibaan cabdi cali. inta aanu ku kulmayno qaybaha kale sheekada waa bahdii oo isku duuban idinku dhaafaysa sidaas iyo ma dhaafno.